dowladda Kenya ayaa shalay dib u fasaxday duulimaadyadii diyaaradaha caalamiga ah ee ka bixi jiray dalkeeda iyo kuwii imaan jiray kuwaas oo ay u ogolaatay in diyaaraduhu ay u duuli karaan dadkana ay u kala daabuli karaan ilaa iyo 30 dal oo adduunka ka tirsan. wadamada ay Kenya saartay xayiraada dhanka duulimaadyada diyaaradaha waxaa ka mid ah Soomaaliya kaas oo weli diyaaradihii aadi jiray aysan u fasixin inay u safri karaan oo ay halkaasi dadgeeyaan. arrintaasi ayaa waxaa walaac xoogan ka muujiyay ganacsatada Soomaalida ee shirkadaha diyaaradaha ee ka kala shaqayn jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi kuwaas oo hadda sheegaya in ganacsigoodu uu soo wajahayo dhibaato dhaqaale. xasan shafaad yuusuf oo ka mid ah mas'uuliyiinta diyaaradaha Freedom iyo Blue Sky ee ka shaqeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa dhibaatada ay ganacsigoodu arrintaasi ku yeelatay waxa uu uga waramay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. wallahi arrintaasi annaga waan aad baan uga xumaanay waana ka naxnay sababtuna waxay tahay meeshii aan ka shaqaysanaynay bay ahayd rajadaan qabnay waxay dowladda Kenya haddii ay furto hawadeeda ama international routeska ay furto inaanu meeshii aan ka shaqaysanaynay Soomaaliya ahayd inay furanto waanu rajaynaynay laakiin unfortunately ma ay dhicin. marka aad iyo aad bay noo saameysay ayaan uga xunahay waana rajaynaynaa haddii aan la yiraahdo ayaamaha ama asbuucyada soo socda inay noo furanto. marka maxaa la idin sheegay ma aadi kartaan miyaa la idin yiri mise guud ahaanba dhaqdhaqaaqii dadka aadayay Soomaaliya kana imaanayay weli dib looma furin? sidaad ogtahay markii la xiray hawada Kenya ay xiratay ilaa hadda Kenya ka hadlayna hawada Kenya markay xiratay sidaas bay u xirnayd. waxaan rajaynayaa bilowgii bishii July ee dhamaatay madaxweyne Kenyatta hadlay wuxuu yiri 1 August waa furi doonaa haddii alla yiraahdo international routeska. marka anagu waanu diyaar garownay tigidhaanu jarnay leenmaanan ogeyn wax gooni ah oo Soomaaliya ama meesha aan ka shaqaysan jirnay ku gooni ah dad baanu tigidha u jarnay oo qorshaha iyagu wuxuu ahaa axadan maanta ah ee aan hadda joogno inaanu falaydkii koobaad ee Soomaaliya aadi lahaa aan samayno. haddii ay Soomaaliya oo 3 bisha tigidhaan dib u dhigi lahayna aan bari ka dhigno oo ismaandayda ah. laakiin waxaanu ku naxnay markii dowladda Kenya ay liis soo qortay oo ay tiri wadamo caynkaas ah wadan hebel iyo wadan hebel ayuun baan u furnay. macnaheedu waxa weeye haddaad iska weydo wadamada ay dowladda Kenya ay ogolaatay macnaha adigu kuma jirtid way meeshaad aadi jirtay ama Soomaaliyadan aadi jirnay kuma jirto weeye. marka halkaan baanu ku naxnay wax waro kalena kama haynin. sababta ma la idin sheegay? sababtu ilaa hadda dowladda Kenya war rasmi ah kama soo saarin annaguna weli ma aanan weydiinin sababteen uga soo saarina dowladdu wixii waaba xidhan baa ayaa weli cusub. annana waxaan isleenahay bal horta waxa bilowdaan oo falaadiyadu ha bilowdaan markay bilowdaan kadib dowladda Kenya aanu weydiino. laakiin sababtu waxay u badan tahay in ay dowladda Kenya ay isleedahay waa COVID-19 ka wadamada ay u aragtay inayna sidii ay rabtay ayna uga shaqaynin inay kullay halkaas ma u malayn karnaa wax kale hadda anagu aanu maskaxdayda soo galay ma jirto. marka dhibaato inta la eg ayay howlihiinii iyo shaqooyinkiinii arrintan iyo dhaqaalihiinii ay u leedahay? wallahi markii dhinac kale laga eego airline businessku waa industry-ga ugu dhibka badan uu ka soo gaaray caalamka. ayaan waxaan akhrinayay qolyahan ayaata la yiraahdo oo diyaaradaha iyo adduunka maamula waxay dhaheen waxaan 2024ga ayaa recovery ama laga soo kabanaya airline business uu ka soo kabanaya. macnaheedu waxa weeye 2020gana hadda aan ku jirno 2021ka 23ga 24ga intaas oo dhan shirkadaha diyaaraduhu way dhutinayaan dhibkii ka soo gaaray COVID-19ka. marka halkaas annana dadka baanu ka midnahay haddana waliba wadamadaas waa wadamo xoog badan oo dhaqaalahooda shirkadahooda ay dowladahoodu kabaan oo wadamo dhisan oo aan sida maxaan ku dhahdaa wadamada bariga Afrika ama Afrika ku yaalo kala ahaan iyagoo ahaabay halka ku qiyaasayaan. waxaad moodaa marka annagu ama dadka iyaga Soomaaliya ka shaqaysta 2024ga meesha laga yiri annagu ka sii dambayn karno saameynta inagu yeelan kartana ay ka sii xoog badan tahay. marka laga soo tago in dadkii aad u qaadayseen Soomaaliya aanan weli ladii ogolaanin dowladda Kenya ma jiraan wax kale oo dhaqdhaqaaq oo duulimaad oo aad sameysaan? wallahi waxa dowladda Kenya markii horeba iyadoo ku
mahadsan waxay tidhi wixii ka go-a waa la ogol yahay in ay Soomaaliya aadaan specific Soomaaliya markaan ka hadalno ka googo ilaa iyo hadda waxa yaraada ma saarna waa la aadaa haddii diyaarad ciduna si gooni ay u kireysatay charter ah ay Soomaaliya looga baahdana waa la aadaa iyada oo shuruudaheeda leh dawladda Kenya ay taxadarkeedii iyo shuruudaheedii ay marinayso laakiin wax kale oo hadda passenger oo meesha aada ma jiro aan ahayn cargogaas iyo diyaarad ama si charter si gooni loo kireystayna way aadaa dawladda Soomaaliya wax xiriir ma la sameeyeen oo ma kala hadasheen arintan si dawladda Kenya ay iyaduna la sii kaashato arintan taasi wali wixii waa cusayb Kenya amarka mar dhow ay soo saartay dawladda Soomaaliya marka inaan bal wixii horta waxa bilowdaan oo wadamada ay Kenya u ogolaatay horta hal aada hana laga yimaado shuruudihii dawladda Kenya ay ku xirday dadka baxaya iyo dadka soo galayana hal fuliyo marka kadib baan annana qorshaha iyagu yahay ama dawladda Kenya ha noqoto ama dawladda Soomaaliya ha noqoto marka annana inaan raanaado annana businesska iyagii wixii shuruudo ah ee labada dawladood ka dhaxeeya oo ay nagu soo ragaan diyaar baan u nahay inaan fulino oo safety-ga iyo maxaan ku raahdaayay ka hortaga cudurkaana laakiin bal xagga businesska iyagii hana loo fasaxo waan dhihi doonaa laakiin waxaan isleenahay let us give them time bal xoogaa yar muddo yar aan siino oo bal horta waxa bilowdan haddii aan la yiraahdo muddadii ay xayiraadu saarneyd duulimaadyada diyaaradaha maxaa khasaare ah oo ganacsigiina soo gaaray ilaa hadda ma jirta tiro rasmi ah oo la sheegi karo markaan ka hadlo business airline-ka especially Soomaaliya ka shaqeeya waxaa jira urur ay ku midoobeen diyaaradaha Soomaaliya ka shaqeeya ururkaasi taqriiban muddo hadda 2 bilood mise bil iyo badh adigu uu yaraan 45 days ka hor statistics uu sameeyay oo uu dawladda Soomaaliya u gudbiyay waxa ku qornayd saan rajaynaya lacag ka badan 130 milyan oo dollar lacag ka badan in ay business airline-ka Soomaaliya ka shaqeeya ay khasaareen taasi marka waxa lagu sii dari karaa hadayba 45 bari ka hor ahayd kadibna wixii kale sii raacayna waa lagu dari karaa marka waa un lacag ka badan 150 milyan oo dollar lacag ka badan ayaa la oran karaa shirkadaha Soomaaliya ka shaqeysta Soomaalida ah airline-ta airline business ku jira lacag 150 milyan oo dollar ka badan bay khasaareen sida ururkaasi ay shirkaduhu diyaaradu ku midoobeen uu soo saaray ugu dambeyntii maxaa ku baaqaysaa waxaan ku baaqayaa labada dawladoodba inay hawshaas ay si fiican in il raxmad la ku eegaan dadku labada wadan ma kala maarmaan dadkuna businesskii dad badan baa Soomaaliya ka iman jiray oo hadda Soomaaliya ku xayiran oo business ku lahaa halkan oo ku lahaa maxaan ku raahdaayay caafimaad u soo aadi lahaa waxbarasho u soo aadi lahaa sidoo kalena dad badan baa halkan Nairobi ku xayiran oo Soomaaliya aadi lahaa oo iyaguna u baahan inay Soomaaliya aadaan marka maadaama laba wadan oo daris ah oo waxyaabo fara badan ay ka dhaxeeyaan ay jiraan in arinta ayada wixii shuruudo ah ee shirkadaha diyaaradaha lagu xirayo inta lagu xiro markaasna loo fasaxo businesska iyagii inaanu bilaabano saasaan ku baaqayaa labada dawladoodna hawsha aan ka codsanaynaa inay hawshaas il raxmad la ku eegaan xasan shafaad yuusuf oo u waramayay Khadar Maxamuud Xareed.